taliye soo dhawaaw waxaa noogu warbixisaa waa sidee xaaladda ciidamada wabxa ku sugan. aada u mahadsan tahay inta baryaha socodkeen baa la socday howlgal oo ay fasanayaan dadka deegaanka kasoo jeeda deegaanada sulxaad sida albur oo ay ayaguna darbaysiinayeen ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed labada hogaaminayeen saraakiil ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo xil saaratay dagaalkii si guul ay ku dhamaaday magaaladiina waa la qabtay magaaladana magaalo istaraatiijiya oo cadowgii lafdabar u ahaya aheyd oo deegaanka walka oo isreerta hiiraan iyo jubilee cadowgana u ah meesha ugu weyn ay jabhada u degan yihiin kasocdeen degmada ceelbuur dagaalkii waxaa u ahay 3 wajahadood wajahad kasoo bixaysay gurceel oo aageedu bartilmaameedkeedu u ahaa warxoolo wajahadna waxay ahayd wajahad kasoo bixaysay maxaas oo bartilmaameedkooda u ahaa toos wadada dheer oo jaaga inay nadiifiso oo ilaa waxaan ay qabato wajahad saddexaadna waxay wajahad kasoo bixaysa goobo ilaa oo dadka deegaanka ah oo ilaa alboorey dhulkaas loogu talagalay 3 wajahadood oo hoog si fiican ay usoo dhamaadeen magaaladiina cadowgii waa ka saxeynay si xoognan waa la gaarsiiyey intaa markay dhacday waa cadowgii la jabshay magaaladiina la qabtay 3 aagna hadda aan kusoo sheegay waxaa iskala howlgelayay aaga waxoole waxaa iskala howlgelayay intada 15 ka qaybta 12aad iyo dadka deegaanka gaar ahaan dadka kasoo jeeda madaxa iyo dadka deegaanka gurceel aaga maxaas iyana waxaa ka howlgelayay ciidamada kumandoodka oo guutada 16aad iyo guutada 5aad horin ka tirsan iyo dadka deegaanka kasoo jeeda maxaas iyo goobo iyo dadka deegaanka walka aaga goobo asigana waxaa kasoo dagaalgelayay ciidanka deegaanka goobo oo ayagana goobahaan u cayinay oo ceelboorada kaliskaas inay qabtaan ah 3 fiilaba sidii loogu talagalaa loogu guulaystay magaaladii markii la galay oo la qabtay oo la tagay magaalada loogu talagalay si laiskugu talagalay aheyd guutooyinkii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo amirtooda ka imaanaysa xagga taliska ayaa ku yimid awaamiir degdega oo looga soo saaray dhammaan difaacyadii hadda aniga kula hadlayo waxaan joogaa deegaanka ulxa oo aan ku suganahay aniga kaligay iyo ciidan aan wadano oo kasoo baxayna hadda maadaama la wada faarujiyey aayigii taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliya loogu talagalay oo guutooyinku ay ka howlgelayeen waa kaasa marka maxay tahay sababta loogu soo saaray ciidamada dowladda la horgalayay ciidamada deegaanka? wallaahi ma garanayo annaga dadka deegaanka waxaan u talagalnay dhulka hadda aan inaan waa dhul iskuweera oo ay degto beesha degta deegaanka walka iyo ceelbuur deegaankaas oo aysan ku sugnayn wax ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo wax bar ah oo ciidan amisom ay ka degan yihiin aysan jirin maadaama ay saas tahay waxay ahayd sida ay kalsoonida kusoo laabato in muddo 15 beri ama 20 beri ama bil ah ciidamadaas aagaga loogu talagalay oo xoogga dalka ay ku sugnaadaan kadibna dadka deegaanka ay ku ballaariyaan ay qorsho u ahaa hal mar ayaa waxaa dhacay faa'iidi waa loo baneeyay ciidanka deegaanka oo badankiisa dad deegaanka oo diyaarada waa loo wada baneeyey furmihii ayaga keligood ayaana waan kusoo haray anigu ma garanayo sababta ay ugu wada baxeen xataa ciidanka kumandoska xoogga dalka soomaalida ee dhan oo ayagana si gaara nooga shaqeeyey oo si u jabshay daawac culus la gaarsiiyey dadka deegaankana ay ka dulfar dagaalamayeen amarkaasaa kusoo dul dhacay ayaguna waa soo baneeyeen saraakiisha ciidanka wadatana awaamiir ayaa la siiyaa awaamirtaas ayayna ku dhaqaaqaan sababta ayaga waxba kama jirin amaraa soo baxay amarkaas ayaa soo wada baxeen taliska xoogga oo aan la xiriirnay waxa uu sheegay in wax isbedel uusan jirin maxaa iyaga mala xiriirteen iyagana wallahi aniga gaal ciidanka xoogga dalka
Soomaaliyeed ka tiranahay waajibaadkaana aniga hadda wax xil ah oo aan hadda talabka ka hayo ma jirin laakiin awaamiir uu madaxweynuhu bixiyay ayaa jiray oo ah in cadowga meel walba lagula diriro nooc walbana lagula diriro marka istiraatiijiyadan cusub oo hadda madaxweynuhu iyo dowladdu ay qaadatay oo ah nimankan qaab deegaana in la saaro ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dowladduna ay garab siiso oo aan sanahay istiraatiijiyada keliya oo nimankan wadanka looga xoray karo inay tahay ayaa aniga ku soo baxay waajib saaranna waa maadaama sarkaal ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ahay in aan cadowga iyo dalka iyo diinta cadowga inaan meel walba ku naafeeyo dalka iyo dadka iyo diintana aan difaacno ninkan khawaarijtana wadanka aan kaga saarno maxaa yeele ola eegno nolol u ogoliyey ma jirto marka waxay ahayd in dadkan deegaanka oo mooralka hadda hayo oo cadowga inay ka saaraan diyaar u ahay oo si beelaysan u socday in garab fiican la siiyo ayay ahayd maxaa yeelay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ma awoodo inay meel walba iyo fuulo walba ay dhigaan ciidan laakiin waxa keliya loogu guuleysan kara cadowga waxaa waaye dadka deegaanka in la caawiyo oo ay deegaanadiina qabtaan lana sugo ilaa ay ka xisbeystaan kadibna ay isku ballaariyaan dhulkooda dadka deegaanadana isla mid aha deegaanada hadda shabeellada dhexe iyo hiiraan oo hadda dagaalada ay ka socdeen iyo dhankan galgaduud waxoogaa waa kala duwan yihiin weliba galgaduud bari wax ciidan oo xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku sugan ma jiraan xarun amisooma oo ciidamada amisom oo ama admis oo African Union ka tirsan oo bar kulana ma jirto waxay ka bilaabayaan jiro waxay ka bilaabayeen istiraatiijiyada marka waxay ahayd taas madaxweynaha waa taxan tahay oo in qaab deegaana looga saaro meesha ay wax ka qaldan yihiin waxaa waaye fulintii waaye meesha wax ka qaldameen oo qaabkii fulinta iyo qabaa'ilkii inaana mooralka laga jibin ee la caawiyo ugu dambeyntii hadda muxuu yahay qorshihiina taliye inaad deegaanka soo faarujisaan ima si joogtaan wallahi dagaalka sida waa qorshe kiina cadowgaagii tabarkiisa fiirso horta cadowga baawara iyo hadda gaayida uu leeyahay oo baabuurtaas waaweyn qaraxyada ay wadaan ahayn ma jiraan miinooyin ay wadada dhigaan nimankaana waa jabeen laakiin xoogaa waxaan ka dareemaa in fursad la siiyey ciidamada deegaanka oo aan wadnana waa dad la soo aruuriyo dad deegaan ah oo aan dadkaas deegaanka ah markay arkaan ciidamadii xoogga dalka Soomaaliyeed oo gadaal oo ka soo baxay ay ku jireen waa dareemi kartaa moralkooda soo kaa karo moralkoodana aad oo u dhaca mar difaaca karaan oo keligood dhulka lagu hay karo moralkooda maadaama hoos u dhacay waxay u baahan yihiin duwacdeen iyo talibka xoogga inuu laftiisa arrintaas oo dib ugu laabto magarad aad u mahadsantaa taliye marka intaas ayaan kusoo koodaa marka waa mahadsantahay dagaalkana dagaal oo cadowga looga guuleysan karo waaye meel fiican oo maraa waxaa la rabaa bis qaladaadka dhaca in la sugo qaladaadkan hadda keliya ma dhicin furmo badan ay ka dhaceen aagag badan ay ka dhaceen oo dadka deegaanku isku soo abaabuleen kadibna laga dhabar jebiyey marka taliska ciidanka xoogga iyo dowladda federaalka la codsanayo inay baaritaan rasmiga lagu sameeyo qaladaadkaas meesha ay ka jiraan tallaabana laga qaado haddii kale mar walba ciidanka markuu moral dadka deegaanka ay diyaariyaan oo moral ay hayaan in aanan dabar jebin fursadaas jirta maanta yaa la khasaarin laga faa'iideysto qalad mar waa dhici karaa mar labaad waa dhici karaa mar saddexaadna waa dhacay marka mar afraad inaan nagu soo laabo nimankan khawaarijtaana aan ka jebino dadka Soomaaliyeed aysan moralkooda aan ugu ciyaarin intaasaan soo gabagabeeyaa wax walba macna sabab ay leeyihin wax bilaa sababa xagga ciidanka ma dhacan waa in la isweydiiyaa sabab intaasaan kusoo koodaa waana mahadsan